Daawadayaal waxaan doonayaa inaan warbixin kooban oo la xiriirta wasiirka arrimaha gudaha dalka Turkiga Saleman Sulu oo markaasi war ka soo saaray arrinta la xiriirta ajaanibta iyo sidoo kale ciqaamadaha sida lagu qaadan karo isagoo markaasi amara culus dul dhigay dadka ajaanibta ah ee markaasi dalkan Turkiga timaada waxa uuna arrimahaasi ka hadlay waxaa ka mid ah qodobka koowaad oo ah arrinta waxbarashada caafimaadka dalxiiska iyo sidoo kale ganacsiga. Wasiirku waxa uu carabka ku dhuftay in qof kasta oo dalkan Turkiga yimaada oo markaasi fiisaha uu ku yimaada wax ka gadisan markaasi la yimaada in uu markaasi diidmo cad qaadanayo taas oo markii horeba iska jirtay hadda laga sii dhawaajiyay. Bal aan wada daawano qodobada uu wasiirku ka hadlay. Daawadayaal waxaan fiirin doonaa hadalka wasiirka arrimaha gudaha dalka Turkiga Saleman Sulu waxaana markaasi aan fiirin doonaa 5 qodob oo muhiim ah barnaamijkan uu soo bandhigay anagoo markaasi diiradda saari doona waxyaabaha ugu muhiimsan ee wasiirku ka hadlay. Haddaba haddii aan fiirnana waxa uu sheegay dadka guryaha ka iibsada ee qof kasta oo guri halkan ka gata waa sida uu isagu sheegay waa dalkani Turkiga inuu sharciga ciqaamadiisa haddii uu shuruudaha soo buuxiyo uu markaasi heli doono oo markaasi ka dhigan in qof kasta oo guri ka gata dalka Turkiga wadada sharciga ahna mara in uu helayo markaasi ciqaamada sharciga dalkani. Qodobka labaad oo isna markaasi sheegayay ardayda waxa uu sheegay in fiisaha ardaynimada qof kasta oo ku yimaada marka uu waxbarashadiisa dhameysto uusan heli doonin ciqaamo kale oo markaasi short time ah. Waxaana intaasi ku daray qof kasta oo markaasi dalkan Turkiga waxbarasho u yimaada markuu waxbarashadiisa dhameysto in uusan mar dambe heli doonin ciqaamo waxayna arrintaasi ka dhigan tahay in uu dalkiisa ku laabto. Haddii aan fiirnana dhanka fiisaha caafimaadka dadka ku yimaada fiisaha caafimaadka waa inay ciqaamadooda caafimaadka ku xareystaan marka ay caafimaadkooda dalka yimaadaan marka uu dhamaadana waa inay dalkoodii iskaga laabtaan. Waxa uu wasiirku carabka ku dhuftay oo aan hore u jirin in qof kasta oo markaasi caafimaad ku yimaada uusan u bedelan karin waxbarasho dalxiis iyo sidoo kale arrimo kale. Waxaana la sheegay in qof kasta oo markaasi caafimaad dalkani ku yimi lala socon doono dhaqdhaqaaqiisa waa sida uu wasiirku sheegay. Qodobka saddexaad ayaa waxa uu isna sheegayaa dadka guryaha kireystay haddii ay rabaan inay ciqaamo xareystaan waa in qofka guriga iska leh ay isku raacaan nootayada si qofka guriga iska leh uu cadeeyo in qofkan kireystaha uu yahay qof guriga degan. Haddii sidaasi uusan sameyn wax sharci ah ma helayo. Wasiirku sidoo kalena waxa uu carabka ku dhuftay dadka fiisaha ganacsiga ku yimaada dalkani Turkiga. Dadka ku yimaada fiisaha ganacsiga ayaa iyaguna sharciga ganacsiga ay ku qaadan karaan oo wax kale oo markaasi ay ku qaadan karaan ma jirto ayuu wasiirku sheegay. Daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen qodobada ugu muhiimsan ee wasiirku carabka ku dhuftay. Waxaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Turkiga ogeysiinana in mowduucan yahay mowduuc idin muhiim ah oo aad ka fahmi kartaan in qof kasta wixii uu dalkani ku yimaaday uu ku joogo si sharciga loo ilaaliyo qofkaasina laga yaabo inuu ciqaamooyin kale ku helo haddii uu sifada sharciga ah markaasi ku dabaqo. Soomaalida kalena sii gaarsi aragtidaadana ka dhiibo. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaa xogteena koowaad aan kaga hadlaynay wasiirka arrimaha gudaha dalkan Turkiga oo markaasi war muhiim ah ka soo saaray oo aad ka fahmi karta in waxyaabo badan uu wasiirku ka dhawaajiyay deewaana sharci wixii sharciga cidina ma diidi karto cid kasta oo ku khasban tahay. Waxaan idin rajaynayaa inaad isku dabaqdaan wax kasta oo markaasi wasaaradda arrimaha gudaha dalkan Turkiga ay soo saartay si shar gareys Soomaalida kalena gaarsi waa mahadsantahay.